بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta aan xilkii laga qaaday oo aan go'aamiyay in maaragtay laga wareejiyo General Cabdiraxmaan laba goole oo ahaa commanderka ama taliyaha ciidanka liyu booliska waxaa kaloo isna aan sameynay isku xandayn ku saabsan mas'uuliyiinta ugu sarreeya liyu booliska iyo booliska caadiga ayaan sameynay iyo dhowr xil oo kale oo muhiim ay tahay in la magacaabo si shaqooyinku u kala socdaan inta la bilaabayo tashigii ballaadhnaa ee ku saabsanaa dhisidda kabinetka hadda waxaan idin akhri doonaa magacyadii dadkaas wadnaasirtiin taliyaha liyu booliska waxaa loo magacaabay maxamed cabdi mawsar ku-xigeenka liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel cabdi xasan muuse maamulka liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel bashiir aw xasan logistikada liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel tarmani maxamed nuur sirdoonka liyu booliska waxaa loo magacaabay colonel mukhtaar sheekh xuseen amiin intaasi waa dhanka liyu booliska isbedelada lagu sameeyey taliska sare ee biliska liyu booliska waxaa kaloo maanta magacaabay commissionerka booliska deegaanka oo noqon doona generaal maxamed xasan cali waxaa kaloo isna la magacaabay taliyaha asluubta ee deegaanka colonel cabdikariim sheekh muuse waxaa isna aan ku noqonayaa commissionerka booliska markaan sheegay waxaan yidhi generaal maxamed xasan cali waxaa ku-xigeen u noqonaya oo isna la magacaabay maxamed cabdi gurey magacaabintaas waa tala xidhiidha dhinaca ammaanka booliska iyo hay-adaha ammaanka weeye xafiiska madaxtooyada waxaa loo magacaabay khadar jibre aadan waxaa kaloo la magacaabay duqa magaalada jijiga si loo buuxiyo kaalinta bannaan ee hadda jirta garaad cumar dool xirsi intaas ayaan hadda ku koobaynaa magacaabidda degdega ee loo baahan yahay si kala dambeynta iyo nidaamka usii socdaan sidaad la socotaan 26kii bishan agost 2018 waxaa la ii dhaariyey inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen ahna madaxweyne ku-meel gaara labada sano ee soo socota deegaanka soomaalida waajibaadka iyo hawlihii la egmaday waxaan bilaabay maanta waxaanan maaragtay ay noqon doonaan mid si joogtaa warbaahinta aad kala socon doontaan hawlaha soo socda ee waxqabadka laakiin maanta waxaan ugu talagalay isbarasho iyo inaan la socodsiiyo arrimo hawlo yar oo aan la xidhiidha dhanka maaragtay dhisidda dowladdii iyo haykaladii kala duwanaa ee loo baahnaa si shaqooyinku u socdaan dhab ahaan sidaad la socotaan dowladda ka dhisnay deegaanku khaladaad fara badan oo dhacay inay jireen xisbigii talada haya ayaa qirtay qiimeyn ballaaran baa ka dhacday addis ababa taas ayaa lagu lafaguray waxyaalihii loo arkayey inay ahaayeen khaladaad oo bixinteeda oo ballaaranna waxaa soo dhigi doona gudoomiyaha xisbiga mudane axmed shide anugu hadda waxaan rabay inaan kala hadlo waxaa weeye arrin la xidhiidha dhanka ammaanka oo dhaqdhaqaaqyo aan loo baahnayn iyo waxuma tashiil fara badan ay jiraan gaar ahaan waxaa la xidhiidha ciidanka liyu booliska iyo hay-adaha amniga ee kale ee deegaanka ciidanka liyu boolisku waa ciidan dowladeed ma aha ciidan shaksi mana aha ciidan reereed mana aha ciidan maaragtay shisheeye waa ciidan deegaanka ka mushaar qaata oo u shaqeeya maamulka deegaanka ka jira sidaa daraaddeed wixii la xidhiidha maamulka siyaasadda isbeddelkiisu ma saameyn karo ciidanka liyu booliska ciidanku wuxuu ka amar qaadanayaa hogaaminta siyaasadeed ee deegaanka hogaaminta siyaasadeed ee deegaanku isbedeli kartaa xisbigu isbedeli karaa laakiin ciidanka liyu boolisku maamulkiisu isbedeli karaa mas-uuliyiintooda waa la isku shaandhayn karaa taasi ma aha mid macnaheedu yahay in ciidankii mar haddii hebel oo haystay laga qaaday waddankii maaragtay lagu kala yaacay oo faraha u ka baxay ma aha waxaan kala talinayaa dadka wada dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha in maaragtay la abuuro qalalaase ka dhana ammaanka inay ka fiirsadaan howlaha ay wadaan dadka
si khaldan loogu warramay loo sheegay in maaragtay ciidankii la kala dirayo waa been cad taasi oo loogu talagalay in lagu abuuro arbushaad siyaasadeed waxaana qiyaasayaa inay wadaan dad raba inay ku dhex dhuuntaan propagandadaas oo ka cararaya mas-uuliyad arrimo ay isleeyihiin marka mar hore laga qabsanaya waxaan markaa ciidanka kala talinayaa inay ay maaragtay ayna dhexgelin barnaamijyo iyo awaamir aan ka iman dowladda inayna qaadanin oo ayna ku soconin iskana ilaaliyaan wixii maaragtay xasiloonida deegaanka wax yeelaya intaas waa iga dardaaran guud